صاحبي وسلم أما بعد بدون كفاية حسب كلمية أحمد عبد الدارة أجسمية شجود وزيركي حنانة حوالها يمكن نجاب حي قدومية قرب دلنيردا أقويها هنكي جان شابور iyo عقاشة مدح dhaqameedka dhamaantiin salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle runtii kulankan iskugu keenay anigana runtii gaar ahaan farxad bay tahay xafladan waan yareeyay maanta waxay iskugu nimid inteeni reer Hargeysa marka ilaa xisbi ilaa xukuumad la yeero runtii farxad gaar ah ayaan aniga tahay inaan madashan ka soo qayb galo marka waydun ka soo sheekayseeno maanta ciida gala muxaafadnimo yeenu xisbiga kulmiye taageero ugu horeysay horta qolada muslimiin qolada ciida gale waxa la haray laba arimood qolada ciida gale waxa la haray isla garanaa waa ku xisbiga daba socday annagana waxaan la hadhay waxaan lahayn maadaama idaan saddexda murashax midna ahayn u cadaalad sameeyo midba in siiya taas annagana la hadhay laakiin doorka maanta waxaan qaadanay inaanu xisbiga dabkiisu baxayo aynu wax ku darsano waxa inta badan mucaaradku isweydiiyaan dhalinyaradii xisbiga kulmiye xagee ka saaxiiban ama xagee iskaga xidhan yihiin markaynu dhalinyaradii nahay waxaynu isweydiinaynaa marka laga tago inaynu Muuse Biixaydun abti u tihiin marka laga tago inuu xisbiga kulmiye Muuse ka soo jeedo marka laga tago inuu yahay hogaamiyaha maanta ugu haboon ee talada dalka inuu qabto ay tahay ninkaynu u garanay marka waxa soo dhan laga tago ka dhalinyaro ahaan waxaynu isweydiinaynaa waa dhalinyaraynu nahay keebay dan inoogu jirtaa xisbiga kulmiye dhalinyaradu waxay iskaga xidhan yihiin xisbiga kulmiye mabdiyan wuxuu aaminsan yahay in talada dalka laga qayb galiyo dhalinyarada waanu hirgaliyo wada way rumowday maanta markaynu eegno wasaaradaha dhalinyaradu joogan waa kuwa ugu iftiinka badan ee agaasimayaasha guud ka yihiin iminka waxaynu soo qaadanaa tusaale dhabeeya agaasima dhabeeya Cumar Sayid bal ilaahay baan idinku dhaarshay idinkii wax qabadkii aad uga soo sheekeeyay dib ugu noqdo 2010 wixii ka horeeyay wasaaradda duulistu noocay ahayd wasaaradda ciyaaruhu noocay ahayd waynu garan karnaa farqa iyo tadawarka u dhaxeeya isbedelka inta leeg ee ay sameysay runtii marka dhalinyarada iyo xukuumadda kulmiye waxay iskaga xidhan yihiin xukuumadda kulmiye waxay og tahay awoodda dhalinyaradu qarankan ay ku leedahay in ay tahay talada dalka laga qayb galiyo aqoontooda iyo aragtidooda iyo xoogooda looga faa'iideeyo marka dhalinyaro ahaan inagu waxaynu eeganaynaa cidda doorina siinaysa eegan mayno cidda cirada uun raacaysa cidda awoodeena aqoonteena iyo xoogeena hirgelinaysa ka shaqaysiinaysa inuu eeganayno xukuumadda kulmiye way soo hirgelisay Muuse Biixina wuxuu ku shaqaynayaa siyaasadda xisbiga kulmiye marka waqtiguna waa gabagaban filaya dhalinyaro waxaynu ku taageeraynaa xisbiga kulmiye oo aynu maanta ku midoobaynaa in dhalinyaradii door mugla uu ka siiyay talada dalka xukuumadda Muuse Biixina ay hadii la yiraahdo markay timaado waxay ku shaqay doontaa siyaasadii madaxweyne Siiraaye xukuumadda kulmiye u dejisnay taas aanaynu ku taageeraynaa dadku labaadina way soo raacdayo waa markii uu horeysay in reer Hargeysa madaxtinimo u soo istaago tan reer Hargeysana waynu ka eegi doonaa walaalayaal aad baa u mahadsantahay waxaan ku soo